Hooyadan Soomaaliyeed ayaa ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, taasoo waayadii dambe ganacsigeeda uu soo food saaray hoos u dhac aad u weyn, isla markaana si uusan u saameynin hoos u dhacaasi, madaxa ciidda ka ceshatay, dhexdana u xiratay sidii ay u maareyn lahayd dhaqaale xumada ganacsigeeda, iyadoona dadka deriska ah amaba ganacsatada kale ee suuqleyda ay isla yihiin kana sareysa ay u doonan jirtay lacago amaah ah amaba deen ah si ay ugu sii dibirto oo ay ugu sii wado ganacsigeeda, maadaama ay ka baqaysay in uu ka xirmo suuqana ay ka baxdo, taasina beddelkeed ay ka doorbitay inay deen qaadato. Waxaana tallaabadaasi ay noqotay mid ay ku ilaystaan isla qayb ka mid ah ganacsatada, kuwaasi oo iyaga qudhooda wax deen ah ka waayay jaarkooda. Waa duubistii farsamadii iyo codayntii anigoo Maxamed Jiilka inta warbixintan asxaabay nabadgelyo.